Garas Baalley mid ka mid ah deegaanada sida xawliga ah u koraya. Dhinacyada waxa ay ku haysaa degmooyinka Kaxda iyo Dayniile. Waxa ay xuduud wadaag iyo dhaxeen u tahay Shabeellada Hoose iyo caasimadda dalka Muqdisho. TV-ga dawladda iyo qaybta dalxiiska wasaaradda warfaafinta ayaa ka mid ah dalxiiskan quruxda badan oo ay maanta martigelisay Garas Baalley. Qada ka kooban cad iyo caano, waxaa xigay casiriyo, dalagga qudaarta iyo xubuubka oo ay gogashan lahayd. Cabdirashiid Cali Dubbad oo ah gudoomiyaha dhalinyarada Garas Baalley ayaa ujeedka ay u martigeliyeen dalxiisayaasha la wadaaga warbaahinta qaranka. maanta waxaa sugu nimid Garas Baalley wax ka mid ah joognaa qaybta dalxiiska. waxaa u jeedaan odayaal ma waa dhalinyaro. dadkan waxay halkan u yimaadeen in magaalada buuqeeda halkan ay kaga nastaan. kulamo dalxiiseed badan aan halkan ku qabanay. dhalinyarada aad ay u amaaneen deegaanka iyo quruxdiisa. waxaan diyaarinaynaa inaan martigelino kulamo kale iyo hujuum kale oo kuwan ka badan. waxaan rajaynaynaa in Garas Baalley fast one ay noqoto hadda booy tahay degmooyinka asaageeda la tartantaa. waxaan rajaynaynaa Garas Baalley barta dalxiiska inay noqoto. Ibrahim iyo Felis labadaba halkan barasho iyo nasiina ay u tahay. waxayna kaga mahad celiyeen kaalinta amni iyo martisoorka ay u sameeyeen maamulka Garas Baalley. maantii Garas Baalley waxaan u tilmaami karaa deegaan aad u jawi macaan, qabow, jawi degan oo run ahaantii sidaad arkaysaanba doogiisa aad ma aragtay uu yahay maxay doog indhaha soo jiidanaya. dhir kala duwan oo dhirtii miyiga lagu yaqaanay ayaa halkan dabcan maanta iga muuqday. waxaa ka mid ah dhafaruur, waxaa ka mid ah geedaha kale ee kala duwan ee Soomaalidu u taqaano muryoodka iyo geedo fara badan ayaan halkan ku arkay maanta. farxad bay ii tahay runtii in muddo kadib geedo noocaas aan arko. waqtiga aan halkan ku qaadanayaana waa mid runtii aanan lagu soo koobi karin oraah kooban. waxaan u mahad celinayaa TV-ga qaranka oo maanta qayb ka ahaa dalxiiska degmada Garas Baalley aan u imaanay. haddana dhalinyarada Muqdisho waxaan aad ugu faraxsanahay inaan imaano deegaan aad u qurux badan oo farxad leh oo jawi fiican aan ku qaadanay. maalinta Jimcaha shaqooyinka laga nasanayo dhalinyarada inta badan u soo dalxiisaan oo degmada Garas Baalley meel aad u qurux badan ee leedahay oo dhalinyarada si aad qurux badan loogu soo dhaweeyay. dhalinyaradana waxaa ku boorinayaa inay degmada u soo dalxiisaan oo ka qayb qaataan horumarkeeda. maamulka ayaa ballan qaaday in dhalinta iyo daneeyayaasha kale aan looga sheekaynin Garas Baalley oo amni iyo bidhaan labadaba kulansatay. sida gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda Garas Baalley Cali Maxamed Macallin Caliyare oo u sheegay warbaahinta qaranka. waxaan u diyaarinay dadka magaalada Muqdisho ku nool oo ku jira maanta inay ka nastaan hawl maalmeedkoodii caadiga ahaa, inay waqti fiican qurux badan deegaankan aad u macaan udug gale carfoon inay ku qaataan waqti aad u qurux badan uga nastaan shaqooyinka iyo mashquulka ay ku jireen hawl maalmeedkooda. saasaan u diyaarin. waa la isku halayn karaa amnigeeda waa qurux badan tahay. saad u jeeda haddaba oo nala joogtaan amnigeeda stable waay, waa degan yahay, waa la imaan karaa, waa lagu dalxiisi karaa, waa soo dhaweynaynaa, wax dhiba kama jiraan. maasha Allah. Cabdi Fataax Qaasim oo ka mid ah dhalinyarada maanta sidoo kalena ah mid ka mid ah xildhibaanada federaalka ayaa u jeediyay laanta fulinta inay iska xil saarto laba wasaaradood oo muhiim u ah jihaynta dhalinyarada. maanta waxaan joognaa Garas Baalley ayaan waxa joognaa runtii oo gudoomiyaheedii uu aad runtii noo soo dhaweeyay oo halkaan aan ku qadeynay ku jimceysanay kadibna aan soo aadnay goobahan aad u jeeday quruxda badan runtii oo indhaha soo jiidanayo. inta isugu timid oo dhalinyaro ah waa dareemi kartaa waxa rajada u muuqata magaalada Muqdisho. aniga waxaan ka mid ahay dadka aan aaminsaneen in dhaqaale badan ama miisaaniyadda intiisa badan ee dawladda loo waaciyo dhanka militariga iyo dhanka muxuu ahaa wasaaradaha kale ee markaasi loo waaciyo aan aaminsaneen. waxaan aaminsanahay dhaqaalaha ugu badan ama miisaaniyadda budgetkeeda ugu badan in loo waaciyo wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska iyo wasaaradda dhalinyarada. waayo amniga la sheegayo waa dareen, amniga waa la sheegayo waa dhalinyarada waxa la jiheeyo, lagu jiheeyo lana tuso dalkan inuu barwaaqo yahay, la tuso in dalkan uu yahay isbeddelkiisa inuu iyaga sugayo. waxaa ka Abdulqaadir Ciise warbaahinta qaranka Garas Baalley.